السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورغيرته سو دواada ku bilaabay saakay aroortii hore ayaa waxa soo baxday warqad ka socota aqalka cad ee dalka Mareykanka taas oo ku wajahnayd hay'adda jinsiyadaha iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka hay'addaas oo loo yaqaano USCIS hay'addan ayaa iyadu ku fogan taabagelinta iyo dhamaystirka application kasta oo ku saabsan arrimaha soo galootiga haday noqoto qof asylum raba haday noqoto qof refugee oo qaxootiya haday noqoto qof green card qaadanayo iyo haday noqoto dhalashada qofka qaadanayo oo applicationka N400 ka buuxsaday hay'addan ayaa kulli loo soo maraa oo soo process garaysa haddaba hay'addii ayaa waxa loo soo diray warqadaasna waxa ku qoraa arrimo lagu adkaynayo qofka raba in uu noqdo citizenka ama dhalasho dalkan Mareykanka ka qaato in arrimo gaar ah laga eego arrimahan badankood hore way u jireen laakiin in si gooniya loo sii adkeeyo hadda ka hor waxaan ka sameynay video ku saabsanaa ninka directorka ka ah hay'addaas nafteeda in uu ku soo celceliyay kuna nuxnuxsaday in imtixaanka dadka laga qaado oo dhalashada su'aalaha yarka ah oo garashada ku saabsan dalkan Mareykanka taariikhdiisa iyo madaxweynayaasha soo maray iyo waxyaabahaas ay fudud yihiin su'aalaha in la adkeeyo numberka 10 su'aal ahaa oo 6 aad sixi jirtayna in laga badiyo taas kaliya wuu ku qanci kari waayeen aqalka cad ayaa maanta mid kale kaga soo dabadaray arrinkan ayaa waxay keentay marka in sheegaan in officerka baaritaanka ku sameeynaayo qofka soo buuxsaday applicationka immigration officerka ah loo siiyay awoodo dheeraad ah in uu baaritaan dheeraad ah qofkan uu ku sameeyo arrimaha ay xoog saari doonaan ayaa waxa kamid ah baa la yiri in aad community-ga aad la degan tahay aad involved ku tahay oo aad dhaxda kaga jirto sidaas la mid ah in aad family caregiving and ties baa la yiri qoyskaaga in aad take care garayso oo aadan jarin xaaskaagii iyo caruurtaadii iyo waxaagii aadan dayicin waxa kamid ah in aad waxbarashada ama degree aad qaadatay ama certificate aad qaadatay oo aad wax educational attainment waxbarasho ah aad soo qaadatay waxa kale oo ka sii midaba la yiri waxyaabaha ay sida goonida u eegi doonaan hadeer in aad haysato shaqo stable ah oo fadhida oo aan warwareegin oo de qof shaqeynayo oo toos 5 sano dalka Mareykanka uu joogay iska shaqeysanayo straight ah tahay sidaas la mid ah xilliga aad ku qarash garaysay ama aad dalka ku nooleed Mareykanka waxay ujeedkoodu waxa weeye 5 sano ee aad sugaysay citizenka intaad noqonaysay meeqa kamid ah ee dalka aad joogtay inta badan ma ka maqnayd mise inta badan dalka waa joogtay sidaasna waxa inta ku sii dheer bixinta canshuuraha oo iyada hadeer si gooniya loo eegi doono marka dadka intaas oo shay baa lagu soo kordhinayaa intan horey way u sameyn jireen laakiin inta way ka fududeed waa la adkeynayaa officerkana immigration officerka ah baa waxa la siinayaa awood ka dheeri ah tii uu horey u haystay memogan ama warqadan waxa sidoo kale ku qoran oo arrimaha dhibaatada keeni kara markii hore waxay ahayd qofka in uusan wax dambiya gelin dambiyada waaweyn oo ay ka mid tahay in aad argagixisada taageerto in aad maaragtay gaariga adigoo cabsan aad meel kala dhacday oo kale in aad canshuurta bixin weysay oo canshuura aad la goosatay iyo waxyaabo noocaas ah ay marka hore eegi jireen oo ama qofkaba in la xiray dambi galay ama qof u dilay ama dhibaato u geystay laakiin arrinkaas hadeer moral characterka qaybtii ahayd ee applicationka waxa lagu sii daray waxyaabo extra ah extradaas marka meesha ugu dhibka badan waxay noqon doontaa qofka traffiga tigidhada qaata ganaaxa traffic ticketska inay kugu bataan lama rabo waxa la dhahaa habitual traffic tickets infractions so inaad tigidho badan aad qaadatay dambiyaday kamid tahay iyadana oo maaragtay reckless driving oo kale inaad gashay oo si careless gaariga u ka xaysay inaad tigidho fara badan qaadatay qayb ay ka tahay waxa kale oo qayb ka noqonayo in aad samaysay waxa loo yaqaano harassmentiga oo qof aad dhibtay oo kale waxyaabaha bulshada aad la dhex joogto oo hadaad haraas garayso oo booliisku tigid ku qoraado ka hor harassmenti ama aad wax qof uu dhibsanayo aad ku soo celcelisay ama aad ku dhibaataysay talaabooyinka noocaas ah hadeer waxay qayb ka noqon doonaan baa la yiri
baaritaanka lagugu samaynayo marka aad buuxinayso applicationka qaadashada dhalashada ee N400ka applicationka la yiraahdo. marka ujeedka meeshan waxa waaye in qof uu yahay clean ah, shaqo toos ah haystay, canshuurta bixinayay, dadka uu la nool yahay communityga ka dhaxmid ahaa, qof wax bartay inuu noqday oo shahaado iyo wax qaatay, sidaas la mid ah in qofka uu child supportka lacagta carruurta lagu support gareeyo hadda xaaska kala tagteen oo kale aad si fiican u bixin jirtay. intaasna waxaa ka sii mid ah haddii ataa dembi aa gashay laakiin dembigaa dembi weyn oo ku diidayo inaad citizenka qaadato uusan ahayn, in lagugu qasbi doono in communityga aad ku dhex nooshahay like Soomaalida oo kale ay ku soo qoraan warqado recommendation ah, receiving letters of support oo lagugu caawinayo. marka arrinkan isaga ah waxaa ka hadlay laba qolo waxay ku doodaysaa in qaadashada dhalashada dalka Mareykanka ay tahay arrin weyn, dadka ugu wanaagsan oo ugu dhaqanka wanaagsanna kaliya la siin doono. qolyahan waxay taageero u yihiin marka warqadan soo baxday ee White House ka soo baxday bay taageero u yihiin. kuwana waxa ay sheegayaan oo hadda nin officer oo hore uga shaqayn jiray hay'adda nafteeda ee USCIS ta isaga wuxuu ku doodayaa in ay rabaan, magaciisa waxaa la dhahaa Matthew Trageser ayaa waxa isaga uu ku doodayaa inay ka niyad jabiyaan in uu qofka soo doonto waxa loo yaqaano inuu qaato dhalashada dalka Mareykanka. arrinkan wuxuu sheegay in ay raadinayaan maadaama markii hore ay sheegeen in imtixaanka adkayn doonaan, haddana ay soo rogayeen qaybtii moral characterka ama qof ahaanshaha iyo wanaagaagii iyo dadka waxa aad la dhex joogtay ku saabsanaa in la sii adkayn doono oo officerka la siin doono chance uu meelo ku farafareeyo. waxa uu sheegayaa inay rabaan inay dadka ay ka niyad jabiyaan inay soo apply gareeyaan applicationka. waxa kale oo uu sheegay in uu Trump iyo xertiisa xagga immigrationka oo iyagu ku adag arrimahan immigrationka ay rabaan in ay officerka u siiyaan chance uu ugu diido qofka in uu dhalasho qaato. so qolyahan way iska soo horjeedaan. ninkan Doug Rand la yiraahdo isaga naftiisa xilligii Biden wuxuu shaqaynayay xilligii Biden, isaga naftiisa arrin lamida ayuu ku doodayaa. dadka dalkan iska joogay buu leeyahay, iska shaqaysanayay, wanaagsanaa, dambiga aan ka gelin waxooda in lagu dhibaateeyo ma aha, wuu isna ku doodaya. so labada dhanba waa la iska hayaa, laakiin haddeer waxaa awood badan dhanka Trump iyo xertiisa Tom Homan, Kristi Noem iyo Trump iyo ninka la yiraahdo Scott Miller. kooxdan ku adag arrimaha immigrationka ayaa hadda awood badan oo xafiiska fadhida. marka arrinkan ayaa soo kordhay oo dadka si gooni lagu fiirinayo. inta ayaan rabay inaan ka dabageeyo, intuu Ilaahay idmo video haduu ku soo gaaray si share gare, like, don't forget to subscribe to the channel, like and share the video inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.